magaalada muqdisho ayay isugu soo baxeen qaar ka mid ah ciidamada xoogga waxaana kulankoodaas ay ku soo bandhigeen cabasho ay qabaan oo ku aadan in magaalada aysan hub ku dhex qaadan karin ciidamada cabashadaas qaba oo saraakiil ay ku jiraan ayaa sheegay in haddii hub la'aan ay socdaan ay ka baqayaan in la beegsado waxaana qaarkood ay sheegeen in xitaa loo diiday ciidanku in xaafadahooda ay ku wataan hub ay isku ilaaliyaan sargaal u hadlay ciidanka cabanaya oo sababa amni u qariya magaciisa codsadayna inaan la baahin muuqaalkiisa rasmiga ah in dawladda laga rabo inay sheegto cidda ammaankooda sugaysa mar haddii loo diiday in hub ay qaataan maanta waxaad ogtihiin nin askari ah ee aan sideen hub uu isku ilaaliyo ee si cad uu dhex mari kara magaalada muqdisho ma jiro dawladduna way ogtahay dadka shacabkana way ogyihiin bariyahan waxaa socday ciidan aan garan weyna meesha laga soo diray iyo cidda xukunta iyo brotokoolka ay ku shaqaynayaan waxaa dhacday nin askari oo shaqo ka soo degaya koonagaar ka soo degay inta laamiga loo istaagtay qoriga laga qaatay mid gurigiisii ka baxay ee shaqadiisii u socda inuu hawshiisii gubto oo telefoon loo soo dirayo talihiisa soo wacayo in jidka loo istaagay qoriga laga qaatay war xitaa i wada aniga i geeya ma xaruntii leen ka soo diray maya shafkaanta gacanta laga geliya laga tuuray gaariga qorigiisina waa la qaatay ma ahan hubka dhigis ma ahan shaqo dawlo waa bilileqo aan dhihi karnaa waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ma ahan waxaanu shaqo yaan laysku kaanalayn hal cadow baan leenahay yaan laba cadow naloo samayn waxaan qaadanayna maahan dhimashaan ka xignaa awalba dee biir golaan iska saarayn faraha looga gubanaya soonahaas annaku aan degannahay ee wada xeeraha iskareeda abni darra kama jirto waa la yaqaanaa waa meesha magaalada ugu abniga badan waxaan kale ee aan meel u weynay askari aan cid dabaanad qaadaysaa jirin ammaankiisii oo isagu qorigiisa keliya dabadiisa ku gambada qorigii baan kaa qaaday or iska tag waa xaalad abuur cusub oo lala shaqaynayo muddo kooxaha kale ee sababta yaa dabaanad qaadaya askariga qoriga laga qaadiyo yaa dabaanad qaadiyo mas'uuliyadiisii magaalada muqdisho ayaa badi waxaa ka dhaqan galay amarkii golaha wasiirada ay soo saareen ee ahaa inaan caasimadda lagu dhex wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn waxaana magaalada ka howlgala ciidamo gaar ah oo loo xil saaray xasilinta caasimadda kuwaas oo kordhiyo howlgal